munaasabadani ayaa waxay ahayd mid tababar loogu soo xiriyay qaar ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliya kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ugu soconayay tababarkaasi. munaasabada tababarka ciidamada loogu soo xiriyay ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo qaar ka mid ah macallimiintii tababarka siinayay ciidamadaasi. mid ka mid ah macallimiintii tababarka bixiyay oo ka hadlay munaasabada ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliya ay si wanaagsan ugu faa'iideysteen casharada kala duwan ee tababarka lagu bixinayay isla markaasina waqtigooda ay si wanaagsan u ilaalinayeen muddadii uu socday tababarka. mudana taliye anigoo ku hadlaya macallimiinta waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba kaaga mahadnaqayaa fikirka aad na gelisay runtii iyaga kaligood inay wax bartameen annaga wax baranay maxaa yeelay tajdiidul muallim inaad daruustii aad soo marto ku noqoto 25 sano 35 sano ka hor ayaa cilmiga kamid ah waxaa kamid ah in aan maanta naqaano ragayna macallimiinta halkaan ahay dhammaan gobolada qaarkood inta badan iyo Muqdisho saraakiisha ka howlgashay inaan naqaano oon ogaan karno qof walba meeshaas jooga magaciisa iyo wuxuu yahay inaan ogaan karno runtii waa mid annagana la baray mid ayaga barna maahin waa kaaga mahadnaqaynaa taasne waxaan diyaar u nahay fikir kasta oo lagu kobcin karo kan hadda aan soo marno kalena inaan kula qaadno diyaarna aan u nahay mudana taliye arrinteena waa mahadnaq waxaan diyaar u nahay shaqo kasta oo ku kobcinaysid booliska ha noqoto mid magaalo madaxda ha noqoto mid gobolada ha noqoto mid kale diyaar inaan u nahay ragayni waana mahadsantiin. ugu dambeyntii taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sareeyagaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo ka hadlay munaasabada tababarka loogu soo xiriyay ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xilligaani ciidamada booliska Soomaaliya ay iyagu yihiin kuwa u diyaara gudashada waajibaadkooda shaqo isla markaasina ay sii socon doonaan tababaradani kor loogu qaadayo khibradda ciidamada booliska Soomaaliya. marka ujeedka taliska booliska Soomaaliyeed waxa waaye inta tabarteena anaka isku filan aqoon-yahano fara badan ayaan qabnaa oo dhinaca shuruucda iyo xuquuqul aadanaha iyo shariicada islaamiyada oo runtii ayagana qayb fiican ka qaatay oo ay ugu horeeyaan xeer ilaalinta maxkamadda gobolka maxkamadda sare maartay guddiga garyaqaanada iyo qaar kale oo runtii abukaatiyaal oo ayagana isxilqaamay oo contribution qayb ka qaatay. arrintan aniga aan bilaabay bishii December dhamaadkeedii aan bilaabay oo aan ku dhawaaqay ololaha tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed waa miisaaniyadii anakana loogu talagalay ayaan wax ka soo saarnay ma oge miisaaniyad tababar loogu talagalay loo dhiibay ma cid kale oo maanta banaanka ka tirsan oo gacan naga siisan ma laha. waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo saraakiisha booliska qaarkood oo qaybta guud ee gobolka Banaadir ay ka mid tahay oo runtii ayagana gacan ka geystay inay maalin ay neefka ariga ay noo qolaan iyo saraakiil kale hadda tababarka fadhisa ayaga naftirkooda markay arkeen arrintan quruxda badan waayo bani aadamka inuu wax ku heshiiyaan raba marka anaga horta inaan wax ku heshiino saraakiil ahaan aan ku heshiino qolkan aan fadhino ee duruusta aan ku qaadanayno inaan anaga dhan wada leenahay marka rag badan ayagana ma kano wax keenay runtii waa u mahadcelinaynaa. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka Bulsho TV Muqdisho.